أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal kusoo dhawaada janalka aqoon official haddii aad janalka cusub tahay subscribe saar muuqaalkan like garee si saaxiib badan u gaaro mahadsanidin weli waxaan ku jirnaa xalinta imtixaankii dowladda 2023 fasalka form 4 waxaana soo gudbinaynaa qaybta ugu dambeysay waxaa ugu horeeya margin ayaa ugu horeeya merge the words in column A with the words column B waxaan isu beegaynaa column A iyo column B ayaan isku aadin doonaa numberka ugu horeeya always waxay ku aadi doontaa all the time ayaan ku beegi doonaa number 2 account for waxaan ku aadin doonaa include for ayaan ku beegaynaa number 3 previous week waxaa ku aadin doonaa ama ku aadi doontaa before ayay noqonaysaa oo d ah number 4 for the purpose of waxay ku aadi doontaa numberka c because of ayay noqonaysaa numberka ku xiga shanaad make decision waxay qaadan doontaa decide make decide ama decide ayay noqon doontaa qaybta b give the opposite of these words erayadan cagsigooda keen ama qor ayaa laga rabaa numberka ugu horeeya join ayay noqonaysaa waa oppositekeeda waxay noqonaysaa disjoin ayaan dhehaynaa number 2 vacance waxaa ku buuxin doonaa full ayay noqonaysaa scarcity oo number 3 ah waxay noqonaysaa surplus number 4 praise waxaan ku buuxinaynaa criticize ayaan ku buuxinaynaa numberka u dambeeya shanaad voluntary waxaan ku buuxinaynaa mandatory ayaan ku buuxinaynaa voluntary waa mandatory ayay noqonaysaa waxaan u gudbaynaa qaybta ku xigta sectionka A iyo waxaan xalinay B ayaan xalinay waxaan u gudbaynaa sectionka ku xiga C ayaa u gudbaynaa sectionka C ayay noqonaysaa ama u gudbaynaa waxaan ku jirnaa imtixaankeenii dowladda 2023 muuqaalkan saaxiibada la wadaag gaarsii si ay uga faa'iidaystaan saaxiibayaal haddaad ku cusub tahay janalkana subscribe saar muuqaalkana ha ka ilaawin liked iyo shared si meel dheer u gaaro mahadsanidin waxaan u gudbaynaa marka qaybta xigta sectionka C ayaan u gudbaynaa use the correct word from the box below isticmaal ereyga saxan ee ku jira boxkan hoose ku jira kuna buuxi meelaha bannaan ereyada heesana waxaa ka mid ah regulation age interesting powerful weather favor league force out clever iyo expelled numberka ugu horeeya ee koowaad the plane will take off date waa late due bad waxaan ku buuxinaynaa weather ayaan ku buuxinaynaa numberka labaad we saw very waxaan ku buuxinaynaa interesting animals interesting ayaan ku buuxinaynaa number 3 my son's teeth started to fall at the way banaan tahay halka waxaa geli doonta age of 7 numberka ku xiga afraad SYL was abbreviated from Somali Youth waxay noo qoran tahay waa league ayaa ku buuxsamaysa meesha numberka shanaad are you feeling or you are okay halka waxaa gelaysa favor waa marka numberka ku xiga the man was expelled ayaa gelaysa expelled of school when he fought with a teacher expelled waa ceerin numberka ku xiga 7 our school principal is very powerful ayay noqonaysaa powerful man numberka ku xiga Hassan was ay bannaan tahay waxaan ku buuxinaynaa forced out ayay noqonaysaa Hassan was forced out from the school yesterday because of indiscipline number 9
waxaan dhehnaa number 9 she is very clever. She is very clever. Number 10 every student must follow the school rule and regulation ayay noo noqonaysaa. qaybta u dambeysa marka waa proverbs waa maamaha. Proverbs complete dhammaystir the proverbs below mahmahdan hoose dhammaystir. Number 2 look before you leap ay noo qoran tahay look before you leap waa. Number 2 an apple a day keeps the doctor away ayay noo noqonaysaa isagana waa saxan yahay. Number 3 too many cookies the spoil the broth ayay noo noqonaysaa. Number 4 there is a will there is a way ayay noqonaysaa iyadana. Number 5 many hands makes a light work. Many hands makes a light work ayay noo noqonaysaa. qaybta u dambeysay maadada Englishka halka ayaa kusoo gagweynaynaa. aad u mahadsantihiin. muuqaalkan like garee haddana wasabtaana subscribe saar. mahadsanidin.